waxaan xasuustaa iyadoo shaqo ku jirto xataa inay soo wici jirtay mamar ila hadli jirtay laakiin hadda markay iga tagtay isbuuc kadib waxaan ku arkay gabadhii haddaan telefoonka waco miiga qabanayso 5 mar 6 mar markaan waco ayay iga qabanaysaa 1 daqiiqo 2 daqiiqo haday ila hadasho waan mashquulsanahay ay leedahay waxaan ka waayay kaftankii shalay aan ku garanayay waxaan ka waayay farxadii aan shalay ku qabay aan ku arki jiray dhamaan waan ka waayay waxaan dhahay noloshaydii shalay waxaan ahayn dad isjecel oo xiriir kaliya ka dhaxeeyo waxa ay siin jirtay farxad wad ila kaftami jirtay wad iga qosol siin jirtay waqti dheer ayaad ila qaadan jirtay حتى waxaan xasuustaa subaxii markaan soo kaco adiguna waqtigaas ah hurdaysid inaan anigu kugu tuugi jiray oo ku baryayaa seexo adaa ay jirto codkaaga iyo hadalkaaga ayaan u baahanahay kamana dhargo hadda markaan laba qof oo isqabaan noqonay oo adiga noqotay isbuuc kadib wax walba way isbedeleen maxaa jiro markaas ay tiri waxba ma jiro waxaan ku mashquulsanahay howlihii aan kaaga soo tagay please ii dul qaado aniga sidii aan ku jecelahay waarunta shalay anigoo xiriir leh ayaan maaragtay farxad ku siin jiray waqti badanna wada qaadan jirnay laakiin hadda saan u imid arintaan aan ku mashquulsanahay intaan arintaan iska xalinayo ii dul qaado waayahay ayaan ku dhahay runtii waqtiga 5 mar 6 mar markaan waco hal mar ay telefoonka iga qabanaysaa 1 daqiiqo aniga waxaan u qaatay in arin ay ku mashquulsan tahay waa iska sugayay wuxuu waqtiga jiitamo muddo bil ah ayaa la gaaray waxba isma bedelaan haddaan 10 mar waco 5 mar waco fariinteeda marka qaar codkayga dhageysanaysaa waxba ima soo duubayso adhow 5 mar 6 mar markaan waco iga qabatane waxay leedahay markii aan codkaaga dhageysanayay waan mashquulsanaa waxaan isdhahayay adhow waan mashquulay waxba uma ana qaadanayn waa qof aan jecelahay waa xaaskayga shalayba jacaylkayda ii soo bandhigatay aadna waan waaminsanaa oo yaraan waxaan isdhahay howlihii ay u oroday way gabar timaaday aroos gashay oo muddo 3 bilood fasax soo qaadatay 42 maalin kadib oroday arintay u oroday ayaa ku adag bal isaga dul qaado qofka bidaadankan waxa fiican qofka uu jecel yahay ama xaaskiisa inuu kalsooni siiyo aniga waxaan siiyay kalsooni waxaan siiyay waqti waxaan jeclaa marxalad walba ay ku jirto inaan la qaybsado aniga nolosheeda hore uma aan soo binin jacayl laakiin jacaylkeeda wuxuu ahaa midkii ugu horeeyay mar walba waxaan jeclaa inaan aad u ixtiraamo qadariyo waqtiga wuxuu jiitamo oo gabadhii aan isbedelaynin aniga aan wacaayo aniga la cod u duubaayo qoraal u dhigaayo oo anigu markaan wacana ay iga qabanayso daqiiqada yar markay la hadashan ay maaragtay leedahay waa mashquulsanahay mashquulkaan aan hore u jiri jirin oo hadda jiro wuxuu waqtiga socdo 3 bilood ayaa la gaaray in gabadhii maqan tahay aadna isku bedeshay oo haddii aan waco aan ku daalay wax walba aan weydiiyana ay leedahay waxba ma jiraan mashquul yar aan ku jira ay dul qaado muddo 3 biloodna ay jiitamayso casir ayaan tukaday masaajidkan ka soo baxay waxaan qaatay go'aan maanta in xaqiiqada dhabta ah xaaskayga haysto anigoona ogaanin inaan telefoonka daminaynin waan soo baxay meel Jardiina ayaan fadhiistay xataa waan ka gaari waayay inaan baxo oo meesheeda shaqada tago waan ka gaari waayay waan baxay meel Jardiina aan tagay waan waxay 8 mar markaan waxay sida caadada ahayd ayay iga qabatay waxaan dareemay inay hurdo ka soo kacday sidee tahay xaaladeeda caafimaadkeeda waxay ugu tiri haddaan soo kacay waxaan saaranahay gudashii okay waxaan ku dhahay soo cadayso soo qabayso arinan ka leeyahay isoo wac bilis degdeg aan ku waay meesha aan fadhiyo ayaan maaragtay kugu sugayaa way hayay ugu tiri adiga waxa iga maqneed 27 daqiiqo ilaa 25 daqiiqo way soo wacday cabaar xaaladaheedii caafimaadkeeda wareystay waxaan weydiiyay arimihii haystay halkee marayaan waxay ugu tiri wali arinta way haysataa dulqaada laga rabaa sabab waxaan ku dhahay noloshaydii runtii adigu waxa ay bartay nolol waxa ay bartay jacayl oo weliga aanan garanaynin nolol aan weliga garanayn waxaan iska ahaa wiil duruuf isaga soo koray iska dhibaataysan aanan garanaynin noloshaan macaan ina xaas yeelato aan inta garanaynin nololaadi bartay farxadaadi siisay nolosha ugu macaan ee qof bidaadan adduunka lagu siiyo anagoo xalaal isku ah ayaad siisay haddana waad iga orday bixitaankii aad baxday wixii ka dambeeyay waxaan ku soo wacaa inta soo mar qofka bidaadanka uu mashquuli kara laakiin 4 ilaa 10 saac ma qaar waxa arkeen aniga telefoonkaaga soo wacaayo adiguna aad iga qabaneen codkayga dhageysanaysid oo maaragtay fariinteeda aad aqrisanaysid aad ii soo jawaabaynin intaba aan waan iska aamusnaa laakiin nolosheedii waxaan rabaa xaaladda ku jirto inaan ogaado waayo xaaskayga tahay waxa ka qaldan aniga ma ogi waxaad leedahay kaliya arintan u soo baxay arinta aniga ma ii sheegi kartid si aan ku ogaado hadday dhibaato tahay inaan kula qaybsado adigu waxay inay ii sheegtay diidaba isjiidnaba waxay ugu tiri runtii ma qurux badna haddii aan hadda ku dhaho waxaan kaaga gaabsanahay arinta waaye ma qurux badna saas daraadeeda inaa iska dayso soo ma qurux badna markaasaan ku dhahay anigu waxa tahay xaaskayga qof shisheeye igama tiid adigu waxa dhibkaaga ah anigu waa dhibkayga waxa adigu faa'iido ku ah anigu waa faa'iidadeeda
noloshayda aniga adi markaan midoobaynay waxaan ku midoobay wax walba inaan isla qaybsano arintan adiga ku haysato oo aniga aan ogeyn oo sii socoto aan dhamaadka lahayn oo aad iga qaban weysa telefoonka ii sheekeen weysay fariinteedina aqriso aad ii soo jawaabaynin bal ii sheeg waxay ugu tiri haddaad ku adkaysatay inaan kuu sheego aniga waan kuu sheegayaa laakiin waxaa ogaataa aniga arintan waxaan aniga ugu talagalay ma ahayn arintaani sidii adiga kugu qabsatay ayaa anigana ii qabsatay markaasaan ku dhahay maxay tahay arinta waxay ugu tiri waxaa jiray intaan aniga iyo adiga xiriirka yeelanin aanan ku baran xiriir iga soo burburay ayaa jiray waxay dhahday waxaa jira nin South African ah aan iskoolka isla dhiganaynay oo aniga isaga xiriir uu naga dhaxeeyay ninkaas waxaan wada soconay muddo 2 sano ah aniga isaga waxaan dhaxmaray waxyaabo aanan qurux badnayn dhaqankeena iyo diinteena aanan ogolayn in muddo ah aniga isaga markaan wada soconay ayaa waxaa dhacday in aniga waxyaabahan aan suubinayo ninkan ajnabiga ah aragtay aniga dhaqan iyo diinta waxaanan ii ogolayn tay aan wada suubinayno ileeyahay mar walba aan dhaho aan isguursanano oo ileeyahay wata 5 sano 6 sano aan wada soconno aan nolosha isku fahanno aan sariirta isku fahanno aniga arintaa way la xumaatay waxaan go'aansaday aniga inaan isaga ka haro ugu dambeyntii waxa ii suura gashay inaan aniga isaga ka haro markaan ka haray waxa igu adkaatay inaan iloobo waxa kale oo igu adkaatay inaan aniga dib isaga ugu noqdo waayo aniga isaga waxyaabaha aan suubinayno ayaa aniga ila qurux badnaan waaye dhaqan ahaan iyo diinteeda aqradeena noo baqay marka waxaan go'aansaday inaan aniga qof xiriir suubsado haddaan xiriir suubsado inaan isaga iloobayo saas daraadeeda ayaan adiga ku bartay aniga isaga oo 2 bilood ismoog ayaan adiga ku bartay markaan adiga ku bartay oo aniga xiriir aan yeelanay muddo 4 bilood aan wada soconno waxa dhacday aniga wiilkiina aan aragnay marka aniga wiilkiisa aragnay isaga wuxuu ahaa wiilka ugu horeeyay aniga aan jeclaado xaqiiqdii wuxuu igu dhahay waxaan rabaa inaan dib isugu soo noqono waxaan rabaa inaan dib u midoobno aniga adiga kula socdo ayaan haddana isagii ogolaaday waan wada soconay marka inta adiga kula socday isagana waa la socday maalintii adiga iyo aniga aan ku heshiinay inaan isguursanno waxaan ku fikiray wiilkan Soomaaliga ah ee kugu dhaqanka ah kugu diinta ah ee waxaan Ilaahay raali ka ahayn maartay ka dhaadhicinaynin ama aan suubinaynin guurso ka har ninkan South Africaanka ah ee Mareykanka ku nool ee kala diinta aatiin kala dhaqanka aatiin ka har gabigiisba kadib waxaan go'aansaday inaan ka haro maalintan soo baxayay oo aan ka soo baxay Canada aan dhankaaga soo aadayay ayaa waxaan u qoray fariin oo ahayd aniga iyo adiga xilligan wixii ka dambeeyay waan kala tagnay dib dambana isugu soo noqonayno aniga waxaan guursanayaa wiil igu dhaqan ah igu diin ah aniga adiga 2 qof oo isku dhaqan ma nihin isku diin ma nihin saas daraadeeda iga raali noqo ayaan u qoray kadib aniga waa soo baxay adigan ku yimid aniga adiga 35 maalin isqabno ayuu maalin fariinteedii aan u diray markaan soo baxay ayuu iga soo jawaabay waayo markii aan fariinta u diray isaga dalxiis oo aaday anigana waxaan soo aadayay adiga dhankaaga 35 maalin kadib ayuu fariinteedii arkay oo ii soo jawaabay wuxuu igu yiri marka hadal aan aad ugu naxay aan aad ugu qalqalay runtii aniga nolosheedana burburin doono adiga noloshaadana burburin doono waxaan ku dhahay maxay tahay ninkaas aan anigu garanaynin hadalka uu dhahay oo aniga nolosheeda burburinayo adigana noloshaada burburinayo markaas waxay igu tiri haddaan xaqiiqada ku sheego horta aniga kuma aanan qiyaanin kuma aanan xumaynin raalina kama ahayn waxa maanta dhacay in aniga uu igu dhacan raali kama inuu adigu kugu dhacan raali kama ahayn fariinteedii ee markaan Canada ka soo baxayay aan u diray uu iga soo jawaabay waxay ahayd wuxuu yiri aniga iyo adiga haddaan isla joogno xataa oo